daawadayaal waqti xaadirkan waxaa khadka taleefanka telefishinka MMTV si toos ah ugu jira mudane Siciid Cali Jaamac oo ku magac dheer Siciid Cali Guray oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee qaaradda Australia. mudane Siciid Cali Guray waxa uu ku howlanaa howlaha shaqo ee xisbiga wadani ee qaaraddaasi Australia. mudane Siciid gudoomiye waa ku soo dhaweynaya anagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaligeed MMTV aad siisay adiga oo howlo shaqo ee xisbiga aad ku jirtay. bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xaalka munaasabadda 18 May oo maalinta beri ah sidaad u aragto. yaasir waad mahadsantahay adiga iyo MMTV-ba waxaan halka ka salaamayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Somalilan guud ahaanba reer Somalilan. waxaan halkan uga jeedinayaa hambaliyada maxaa ku raadaya xafladda 18 May oo qabsoomaysa maalmaha soo socda. sidaad la socoto yaasirow 18 May wax laga xusaa dhammaanba daafaha dunida. 18 May waa maalin qaran, waa maalin midnimo muujinaysa, waa maalin haddii ilaahay kuu rooyahay qaranka Somalilan aad iyo aad ay ugu fadhido maxaa ku idhaahdaye maalin weyn ku ah. waa maalin qadiyadeena aynu si wada jira mucaarad iyo muxaafidba u muujino. waa maalin soo ururisa qaybsanaanteenna, tafaraaruqeenna, kala fikir duwanaanshaheena iyo wax kasta oo aynu ku kala duwannahay. 18 May xisbi male, madaxweyne male, mucaarad male, ururna male. waa maalin qaran. 1991 jamhuuriyadda Somalilan waxay kamay goosan Soomaaliya ee waxay dib ula soo noqotay xorriyaddeedii ay ku darsatay Soomaaliya 1960. marka Somalilan waa maalin farxad u ah. waa maalin aad Hargeysa joogtaa oo aad dareemayso waxa weeyaan dadka Somalilan annagu haddanu qurbaha nahay dee xafladanu ku xusnaa. maalintaas nooma suurto gasho inaanu exactly the day 18 May-ga sida idinku u martaan u marno, laakiin ama waxa weeyaan maalin iyo laba inooga dhacda hoolal iyo maxaa ku idhaahdaa baanu ku xusnaa. laakiin idinku dee waxa weeyaan waxaad joogtaan dalkii Somalilan. xafladdaas shucuurta baanu idinla wadaagaynaa, qalbigeyda idinla jira, waxa weeyaan wanaagayga idinla jira, midnimada idinla jirta. anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani waxaan halkan dhammaan basalaan iyo hambalyo u diraya guud ahaan shacabka Somalilan. waxaan sidoo kale hambalyo u diraya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somalilan oo maanta ayagoo maxaa ku idhaahdaa difaac ku jira weerar lagu hayo maxaa ku idhaahdaye maanta dabaaldegaya. gacanna way ku dabaaldegaynaa, gacanna waxaan ku idhaahdaye maxaa ku idhahday qarankan ku difaacaynaa Somalilan. iyo 18 May meel adag ayay Somalilan kaga taallaa. shacabka Somalilan guud ahaan waxa weeyaan waa aad baan idin salaamayaa kulligiinba. geesta kalena mudane gudoomiye deegaanka Cali Saahid ee hoos timaada gobolka Togdheer waxaa ka taagan xiisad colaadeed ayaa maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa. bal xaalka deegaankaas sidee u aragtaa? beelaha walaalaha isku dhaca ka yimi waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaanba anigoo ku hadlaya qurba joogta Somalilan ama xisbiga wadani. waxaan leeyahay kugu dhibay iyo kaa dhibay kee dhitaaba waani. waxa weeyaan wax alla waxaa ku kala gedisan tihiin gobolka Togdheer shaqaaqada ka soo cusboonaatay ma jirto. dad walaalaa isu abtiya, isu seediya, isku dhaqana, isku dhiiga baa tihiin. maxaan ku idhaahdaye maanta waab yaroo la buriyo, xirfad yaroo maxaan ku idhaahdaye caagada laga saara iyo maxaan ku idhaahdaye shraac dhul yaalla, naf intaa ku dhimatay baa ka qiimo badan. walaalayaal reer Togdheer maxaan ku idhaahdaye istajiya
shaqaaqadaana waxaan aada iyo aada iyo aada ugu rajo weynahay in si nabadgelyo ah lagu soo xalilo oo waxa weeyaan maanta ma qaadi karno qaranka somalilan meelo badan ayaa faquuqa kaga abuuran tahay walaalayaal ma qaadi karno fidmadu inta ay kuu jirto ayaa maxaanku idhaahdaaye intay kaa maqan tahay qof kale la jirtaa masiibadu marka walaalayaal reer togdheer waxaan leeyahay arrinkaas oo afjara dad walaalaa oo isdhalay oo isku ehela oo isku qaraabo ah oo maxaanku idhahdaa dhal iyo dhashiiya baa tihin cid idin kala turjumaysa ma jirto cid maxaanku idhahda idin dhexdaadinaysa ma jirto idinkale iskiin baday qarankana u tura maanta qaranka meelo badan baa waxa weeyaan fadqalala kaga abuuran tahay qaranka meelo badan baa laga ducaduceeyey maalintii adinku is eegi lahaydeen maaha gobolka togdheer maxaanku idhahda waa gobolkii halganka ku sultan jamhuuriyadda somalilan waa halkii lagaga dhawaaqay waa halka ugu badan ee halgamaaga qaranka jamhuuriyadda somalilan haddii ilaahay kuu rooyahay uu kasoo aasaasmay waa halkii ay halgamaaga somalilan inta ugu badan 80% ay ka yimaadeen ee qaranka dib u xoreeyeen maanta oo mar labaad qarankan la doonayay dib loo difaaco qarankan furmo kale ay ku abuuran yihiin in maanta gobolka togdheer layaa dhexdiisa ay haysta arrintaasi arrin ina qabato maaha somalilan guud ahaan xisbiga wadanina hadduu yahay laamaha dibadda iyo hadduu yahay tii guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan uu baaqa ka dirayba baaq guud baan u diraynaa wartalow colka jooja daawadayaalkaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee qaaradda Australia oo howlo shaqo ku jiray ayaa telefishinka MMTV waraysigan siiyay aad baan kaaga mahad celinaynaa mudane Siciid Cali Jaamac Siciid Cali Gurey waqtigaaga MMC